hubkan waa hub kamid ah hubkan isticmaalo waxaana adeegsadaa markii ay qatar ilada soo daristo maadaama ay mararka qaar ay dhacday in habeen aan shaqeeyo xilli dambe magacayga waa Ayaan Ibrahim waxaa ku noolahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden waxaan ku shaqeeyaa xirfadda taksiga xirfaddan waa xirfadda ragga Soomaaliyeed lagu yaqaan ee ka shaqeey jireen haddana anigana waa kala soo qayb galo oo dhinacayaan kaga shaqeystaa hawl walba la qabanayo shaqo walba la qabanayo waxay leedahay caqabadaheeda gaarka alxamdulillah laakiin ana ilaahay wuu fududeeyay si sahlan ilaahay uu iga dhigay alxamdulillah shaqada taksiga inta aan wado waliba taksiga aan Uber Boltiga aan wado aniga leeyahay markii ay macaamiil fara badan ay soo raacaan oo kaleeto sida Arab iyo Ajam Swedishka rag iyo dumar isugu jira runtii wala yaabaan markay arkaan gabar haddana xijaaban mid aan xijaaban ay saxataa ay ka waayaan taksiga oo aniga ay ugu arkaan way ku farxaan waan isoo dhaweeyaan wax la yaabna wala noqotaa waxaan soo jeedinayaa hablaha Soomaaliyeed qaasatan hablaha Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa in ay ku dhiiradaan shaqooyinka ay rag qabanayaan si ay u dareemaan in ay awoodaas ayagana ay leeyihiin ay ragga ka liidarin kaliya aan ku kala doonahay shanka ilaahay boqol uu ka dhigay anaga konto uu naga dhigay laakiin awooda shaqada iyo xirfadda in aan u simanahay ee dumarkana ay ku dhiiradaan wax walba oo ninka qaban kara aad qaban kartid runtii mar walba waxaan jeclaa xirfadaha ee dumarka Soomaaliyeed ay ku yihiin oo aan ka muuqanin salahan sida maaragtay dumarka inay xanaanooyinka shaqeeyaan nadaafadda ka shaqeeyaan caafimaadka ka shaqeeyaan aad bay ugu badan yihiin mar walba waxaan jeclaa aniga in aan ka shaqeeyo ama aan dhex galo meelaha ee dumarka ay ku yihiin si aan u muuqdo ee dumarkana ayagana ay ugu dhiiradaan runtii 6 sano ka hor markii aan bilaabay iyo hadda way kala doontaa 6 sano ka hor dadku way la yaabayeen wax cajiib ah ay ahayd inay gabar Soomaaliyeed soo fargashato tagaasista ee soo lagu gashato laakiin hadeer way ka duwan tahay waayo dadkii waxay u noqotay wax oo caadi ah hablo badan oo kale Soomaali ayaa bilaabeen tagaasista aan hor ugu shaqeey jiray 6 sano ka hor oo soo galeen dadkii markii way la qabsadeen dadkana Soomaaliyeed aan ka dhalalna mar walba wixii ku cusub ee arkaan way ka naxaan way la yaabaan wax la yaab noqotaa laakiin wixii markii ay maaragtay ay noqoto wax ay umada kale ee yaani 2 3 4 ay ku arkaan inay caadi noqoto sida darteed ayaa ana waxaan doortay in aan mid ani gaar leeyahay oo ari shirkad aan leeyahay oo ay gaari ana leeyahay in aan ku shaqeeyo haddana mar labaad aan kaga nixiyo wayna dhacdo sida aan rajaynayo